munaasabad siyaasadeed loo soo agaasibay isla markaana xadhigga looga jarayay jidka isku xidha gobolada Saraar iyo Togdheer oo ay dayactir ku sameysay hay'adda wadooyinka Somaliland oo u wakiilatay kambaniga Bilal Construction Company oo mashruucan isagu fuliye ka ahaa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar. munaasabadan uu daadihinayay xildhibaan Axmed Cagaarane oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Caynaba isla markaana kamid ah xildhibaanada ugu firfircoon ee golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa waxaa ka soo qayb galay maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland, maareeyaha madbacadda qaranka, madaxa kambaniga dayactirka ku sameeyay wadooyinkan, maayirka degmada Caynaba, cuqaal iyo waxgarad aad u tiro badan oo kale. ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salebaan oo mahadnaqaad u balaaran halkaasi uga soo jeediyay hay'adda wadooyinka Somaliland ee SRA iyo waliba kambaniga dayactirkan ka qayb qaatay isla markaana dhabarka u dhigtay hawshan intan leeg. sidoo kalena waxa uu maayirku intaasi ku daray inuu jidkani dhibaato ku hayay gaadiidka ayna ka dhici jireen shilal khatar ah xilligii uu burbursanaa walow hadda dib u habeyn lagu sameeyay. maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Injineer Cali Saciid Reegal oo isna madashaasi hadallo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay ayaa ka warbixiyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Somaliland inay bulshadeeda wax dan u qabato, wuxuuna shacabka reer Caynaba u soo jeediyay inay gacanta isku qabsadaan sidii ay deegaamadooda u horumarin lahaayeen. madaxa kambanigan dhisaya isla markaana dayactiraya wadadani Bilal Construction Company mudane Axmed Cagaare ayaa isna mahadnaq halkaasi uga soo jeediyay shacabka reer Caynaba oo uu tilmaamay sidii ay ula shaqeeyeen muddadii 4 bilood ahayd ee ay wadeen dayactirka jidkani oo dhammaa 130 kilomitir. عاقل محمد درور دعالي عاقل إبراهيم عيسى تليها قيبته بوليس كقبل كسرار جامع إبراهيم جود عدة قدوميها أوركها وينها قرن كناو قبل كتقدر هند جامع قاني مسؤولين كلا ودورة أي دمان تود سقطوا مريم هنقبل عنها هالكاسوق سوتشيدي ماريا هيد ودوين كسومالي لان وقدوميتنا قدوميها قولها الدجان كهندوق دقمة عينبا خليف إسماعيل سلبان أي شهادة شرف وطلق الإسلام مركانا وكتو جميسة وحقبتك ودلكي سأقبتي كمبني بلال كونستراكشن كمبني gundusiyay Axmed Cagaare oo ah madaxa kambanigani taasi oo maayirku sidoo kalena ka codsaday Axmed Cagaare inuu dadaalkaasi dheeraadka halkaasi ka sii wado. si kastaba ha ahaatee kambaniga dhisaya isla markaana dayactiraya jidkani oo lagu magacaabo Bilal Construction Company ayaa badanaaba ka qayb qaata horumarinta iyo dib u dhiska wadooyinka gobolada Sool, Saraar iyo Togdheer. maxamed aadan, Somali Channel, Caynaba.